بسم الله الرحمن الرحيم. maanta waxaa farxad iyo sharaf weyn inoo ah inaan kasoo qayb galno daahfurka buugga taariikhiga ah ee uu qoray Professor Said Gordo. buuggani waa buug taariikh Soomaaliyeed ka hadlayo oo wax weyn u tari doona insha Allah taala hadduu Ilaahay dhalinyaradayna. waxaan aad ugu mahadcelinayaa dadkii kasoo qayb galay oo waqtigooda qaaliga ah na siiyay. qofka walaalka ah markuu waqtigiisa ku siiyo waa qof qayb ka mid ah noloshiisa ku siiyay. marka jazaakumullahu khayran sida aad noo soo ajiibteen ilaahay meel ka sharaf badan ilaahay idinkugu ajiibo. jazaakumullahu khayran. insha Allah waa bilaabaneynaa. marka waxaan ku bilaabaneynaa aayadaha quraanka insha Allah oo noo akhrin doono walaalkeena Abubakar Muxdiin oo ka mid ah odayaasha jaaliyadda Baraawe ما شاء الله سوماليات مركا إلى السعودية. جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. ولا ريال كل خير إلهي أنا قديمه. آمين. بعد ما هتسنتين. شكرا. بارك الله فيك أبو بكر. هدنا إن شاء الله تعالى وحن وقت سينينا دتكي بوق سو أخريي إني حوغا ير وربحن نقصيان إن شاء الله تعالى. runtii waxaan nala joogo qorayaasha oo reer UK ah oo dad culculus qoraha aan ku bilaabayo waa runtii waxaa la yiraahdaa geedan tiriyay quracan ka tagay ma anfacayo. marka waxa waaye nin oo qoraa oo taariikhda wax ka qora marka oo buuga soo akhriyay oo qoraaga saaxiib ay ahaayeen oo ay wadaagi jireen xog macna isweydaarsi aqoon isweydaarsi ka dhaxeeyay. marka ila soo dhaweeya hadduu Ilaahay yiraahdo دكتور قراء سعيد ترنجي. بارك الله فيكم. جزاك الله خير. وإذن سلامة كل جين فردي كان ما أنتم وجد دوية فردي يدي كله وملهنا أسكون ميت كومونيتا هذا هبرا وآد أتمت وجيدو ذا أنقار بدن أنكسايو. waxaan aad haddana ugu sii farxay in saaxiibka avocado catiiq aan is aragnay sanooyin badan kadib. catiiq jaamacadda aan wada dhiganay fakultadi leje universitadi xamar. maanta markaa meeshan ku arkay aad aan ugu farxay. buugga maanta aan hayno titolihiisu waa Banaadir the Cradle of the Somali Civilization. كرادلكو waa meesha ay wax ka soo dhaxdaan mahdiga iyo ama sariirta ilmaha lagu koriyo iyo meesha wax ka soo dhashaan aftaaniga kulla dala civilta oo Soomaalida ayaa lagu yiraahdaa. af Ingiriis ku qoran yahay 266 baajina waay. waxaa lifaqyaal badan oo 9 ah oo wataa. lifaqyaalkaas waxaa ku jira masawiro iyo warqado taariikha oo aan la helaynin mawlto raara ah very rare. marka aragtaan yaad arki doontaan. Saciid Dr. Saciid xogta wuxuu ka helay ama sourciga ama fontiga uu ka helay waa dalalka Talyaaniga, Kenya, Soomaaliya iyo Zanzibar ama Zanzibar sida loo yaqaano. taas waxaa si raaca hadana interviewal oraalaha oo dadka weydiiyay dad waagaas joogu jiray warow ka qaaday yaad ka arkaysaa buugga. Dr. Saciid waxaa caawinay oo anaga badankeena uga duwan yahay afaf badan oo kuwa Soomaaliya laga isticmaali jiray ah oo saddexdaba yaqaana: Carabiga, Ingiriiska iyo Talyaaniga. anaga waxaan u badannahay haddaan reer koonfurta nahay inaan hal naqaano
ama labo asaga wuxuu isku darsaday saddexdiiba buugga ka garanaysaa inta xuruuf carabiya ama warqado talyaaniya oo asagu tarjamay oo meesha ku qoran ogowna dhowr goor waa sheegnay taariikh Soomaali haddaad rabto inaad si fiican u ogaato waxaa loo baahan yahay taariikh Soomaaliyeed siiba koonfurta inaad afka Talyaaniga taqaano oo aad inta arkiviyalka ama bibliotekayalka ama jaamacadaha tagto aad akhrisi karto hadda af Talyaaniga waa ka zuulay Soomaaliya Soomaaliduna waxay u yaqaaniin afkaas waa waxa la dhihi jiray Rooma iyo Xamar looga hadlaa hadda wuxuu ku soo haray Rooma kaliya yay yiraahdaan laakiin kullayba haddaad taqaano faa'iido weyn ku jirta haddaad rabto inaad qoraal Soomaaliya taariikhdeeda waa meesha loogu tago depository oo ah oo laga maarmaan ah waa waxaan la kulmay gabar Soomaaliyeed oo Harvard University ka diyaarinaysay PhD taariikhda Soomaalida cideeda waxay u direen Roma 2 sano inay afka Talyaaniga barato si ay access ugu hesho dokumentiyalkaas tirada badan leh oo af kale aad ku helayn yarta gabar yar ahayd Roman kula kulmay dhowr goor labadii sano ay joogtay midda 3 iyo 4 goor waan arkay way dhamaysatay PhD waa qaadatay Harvard hadda waxay ka shaqeysaa jaamacadda nafteeda oo Harvard Saciid marka taas yow dadkan Soomaalida ah badana uga duwan yahay qolyaha reer Noordkaahu waxay yaqaaniin midda Carabi iyo Ingiriis qolyahan kale waxa suurtooda inay Talyaani iyo Carabi yaqaaniin waa kuwa aniga iyo kuwa daadayda ah laakiin nin saddexdooda isku koobay oo kamid yahay koob waa mid oo ninkii ugu horeeyay arkayo Saciid wuxuu PhD ku qaatay geology dalka Talyaaniga Xamar iyo meel kale ku soo sameeyay hadhow arki doontaan title uu ku sameeyay waa garawaaye waa markaa eray professor Warfaa waa in loo yeero asaan noo sheegaa title wuxuu markaa waa ka sii waayay waa wax ku saabsan geologiyada iyo mineralogiyada ku saabsan nasiib wanaag Warfaa waa noo yimid buugga waxaa soo saaray saaxiibkan Ciid Publishing ninka halkaas fadhiya yaa soo saaray oo publishing house waa asaga sanadkan dhexdiisa bishii Maajo aan malayna uu soo baxay buugga waxaa ka baranaysaa taariikhda iyo xadaarada dadka iyo magaalooyinka xeebta Banaadir badanaa xeebta Banaadir waxaa loo yaqaan meelaha ugu waaweyn Xamar Marka iyo Baraawe intaasoo ku ekeeyay siday wax ahaayeen inay mar dawlad ahaayeen xataa qaar wuxuu ku sheegaa jamhuuriyad inay gaareen republic wuxuu sheegay suldaamo inay xukum jireen wuxuu sheegay sheekhayaal ama dad diinta yaqaan inay xukum jireen saddexda meelba intaasna waxa waaye inta ay Talyaaniga iyo Cumaaniyiintii intaysa imaanin waay ilaa mar dambe waxaa la wareegi doonaa Cumaan oo u malaynaa suldaanka inuu fadhiyay Zanzibar wuxuu ku sheegaa inta dibadda dad uga timid ha ahaada Ibn Battuta ninkii ahay macruufka ahaa ha ahaadeeno Portugiiska ha ahaadeen qoliyada kale Shiinaha waxaan la yaabay buugga waxaan ku arkay waxyaalo laga qoray oo qolyahan meesha tegay ay ka qoreen Xamar iyo Baraawe sida waxa ahaayeen baac mushtarka businesska dadku say u ladan yihiin waxa la sameeyo maxaa la yiraahdaa maxkamadaha
waxaan u maleynaynay anaga inay Yurubka noo keeneen waagaasay bijireen ba intaysan Yurubka imaanin magaalooyinkan saddexda oo ugu waaweyn Banaadir kulli wax arkaysaa Ibn Battuta wuxuu sheegay dhan ya arkaysaa wuxuu la kulmay qolyahan Shiineysku sidoo kale Portugiisku sidoo kale waxay ahaayeen meelo beecmushur loo tago beecmushur ay u aadaan laga faa'iideysan jiro dad xadaarad leh inta dadka kale oo badda ka dheer oo Soomaalida oo lama goodaha loo yaqaanaa inay meel kale ku noolaayeen qolyahan waxay xiriir la lahaayeen reer Banaadirka oo adduunyadaas ilaa China ilaa Carabta ay calaqad la lahaayeen aad wuxuu uga hadlay buugga uma joogo maanta aniga inaan idin macneeyo adinka la rabaa inaad buugga akhrisataan anoo idin soo kookooba kaliya hawsheeda meesha aan u fadhiyo maaha inaan buugga macneeyo haddii kale hadaa idin macneeyo waa iska dhaafaysaan wixii dhammaay halkaasay ku yaaleen iyagoo detalyaata amaan sidii loo joogay qolyihii reer Yurub ay yimid waa ogtiin kulli waxay ka bilaabeen xeebta Talyaanigu markuu imaanayay xeebta ilaa uu ka gaaro Soomaaliya inteeda kale wuxuu ku nagaaday xeebta meesha la yiraahdo Marka Xamar iyo Baraaw kadib waa mar dambe waa marka uu sii fidaayo ilaa uu mujirtiye ka gaaro 1902 waxaan laga hadlayaa 1800 iyo wax la jira marka uu Xamar iyo imaanayo Soomaaliya u wada qabsado ama uu xukumo waxay ka qaadatay sanooyin badan ilaa 1927 Saciid haddana wuxuu kaloo u sii gudbaa waa sheegnay qolyahan Zanzibarku markay xukumayeen meesha wuxuu leeyahay Talyaanigu markii hore shirkado keensaday asigu toos uma xukumeyn dhulkaas waa dambe 1905 arma xoog toos dawladda Soomaalida dawladda Talyaanigu ula wareegtay maamulkii dalka laakiin waa hore shirkado Saciid waa sii soconaa wuxuu gaaraa dadka reer Banaadirka ruwolaha ama roolka ay ka qaateen dhismaha dawladnimada cusub ee Soomaaliya markaas maxaa la gaaraa xornimo doonkii iyo wixii iyo wuxuu ka sheekeynaa dadka reer Banaadirka siday ahzaabtii kuwa ay leeyihiin gooni iyo kuwa ay dad kale kula shirkoobeenba ay uga qayb galeen ilaa ay heerar ka gaaraan ama magac dadyaalo badan oo magacaab ah oo meesha ku yaala oo qaarkood aniga aan ogeyn oo xornimo doonki roolaha ay ka qaateen reer Banaadirka markaas asagu aad ku kooba kulli Barawaan iyo reer Xamar iyo reer marka midna ma laha Banaadir uu ku leeyahay ilaa laga yimaado ilaa hadda waxa hadda jira iyo wixii ka dambeeyay dawladnimadu hadda macna ay yeelanayso inaan ka sheego wixii Saciid ka sheegay male intaas oo ku ekeynaa waxyaalihii hore u taariikhda Xamar ama Banaadir sidoo dhahayo aad iyo aad ayuu u falanqeeyay buugaag badan uu soo qaaday siiba Talyaaniga buugaagtii ay qoreen magacyaal famose Cerulli la dhaho iyo Roberto Brichetti oo waxay qoreen inay waxay qoreen aan aragnay marka wax waaye un stimulo ina dadkii inay itihaad lagu suubiyo in la sii wado wuxuu isagoo bilaabay sayesha in la sii wado la sii maxaa la gudi galo siiba arrimaha waxay ku bilaabatay Xamar dhismaheedii waxyaab la waaye markaad aragtid ereyga camal waxaa jira federation
oo lagu xukumi jiray xamar oo suldaan kadib inayo qabaa'ilka ay isku council camal samaysan jireen wadatashi shone wax weyn buu ahaa. waa midka kalena waxaan ka arkay alxamdulilaahi inuu dalka Soomaaliya inay xiriir la lahaayeen carabta si ahla Xijaaz oo la sheegayo in Caqiil ibn Taalib inuu Soomaali yimiday oo banaadir iyo Soomaali badan ay asaga ku tirsadaan oo abtirsadaan Caqiil ibn Taalib iyo Jacfar ibn Abi Taalib. marka taasna waxay xoojinaysaa xiriirka carabta iyo Quraysh ahaanba iyo Soomaalida ay jirtay. waa midda kale markaan kormaray waxay ahayd si oo loo falaanqeeyey etymologida siday magacyada meeshay ka yimaadeen xamar banaadir xamar weyne xamar jabjab xamar maxaa lahay shingaani waxaas ahaan baraawe marka waa inaas la siiyey dad expert ah oo inay xoog loo saaro etymologida sidii ay qorsheeyeen. marka shakhsiyan markaan fiirinayay barnaamijyo shingaani wuxuu lahaa in erayga baajuune ka imaanaysa shingiisus ngozi iyo waxaas laakiin shingaani waxaa malinaya inay ka iman karto mar waqtigaas lacagta ay jirtay geniyaasha oo la isticmaali jiray 5 geni meeshaas in wax walba lagu isticmaali jiray beecda iyo waxaas. midda kale aniga la ku fekeray baraawo magaca baraawo sidoo kale inay waxaan lagu barbartaaganay samarase ku timiday sorra maraa ya baraawale amay tahay barra maraa allahu yaclam. waa ina taasna waxa weeye un invito ini oo si oo maxaa lahay si xoog maxaa lahay diib gudi ahaan loo galo oo la darso qof walba inuu isku ijtihaadiyo xoog saaro siisaan. waa midda kale waxa waaye waa inaa xoog saarnaa in buug wax la qoro waa inaa wax la qoraa waa inaa wax reebnaa sidii oo maxaa lahay Dr. Saciid oo noo bilaabay inuu aan sii wadno aan sii wadno. talyaaniga markuu soo galayay wuxuu soo galay si nabad si umaleynaya si dagaal kuma soo galin bilaawi suldaamadii Obiyo iyo suldaankii marjarteen ayay weydiisteen maxaa la jiray in la difaaco ama protection loo sameeyo. xagga banaadirne waxa weeye waxa ahayd Cumaaniyiinta ay maxaa lahay u gudbiyeen ama gateen beec mushtar ka dhigeen maxaa talyaaniga società filonardi oo dhahayaan oo kadibna ayadana dowladda talyaaniga u wareegayso sidii hadda Turkiga noo sheegay. marka kadib ayaa dareen maxaa lahay xornimo soo galaysa 1940 oo markii ay Ingiriiska soo galeen oo markaas la bilaabayo inay maxaa lahay xisbiyo ama urur xisbi weli ma ahan xisbiyo xamar youth club iyo Somali youth club oo kadib loo soo bedelayo Somali SYL iyo maxaa lahay Unione Giovani Benande kadib Somali markaas ayaa bilaabanaysaa sidii loo ogolaan lahaa maxaa la jiray sidii loo dadaali lahaa loo heli lahaa xorriyad taam ah istiqlaal taam ah oo markaas UN-ka inay soo dhexgelayso dad maxaa la soo dirayaan commission isla kule markaas ayaa si u dhageystaan dadweynaha maxay dantooda yahay maxay rabaan. markaas ayaa bilaabanaysaa sidii oo xal loo heli lahaa maxaa lahay xorriyadda Soomaaliya
ما شاء الله بريمو لوليو كن سغال بوغي لحدنكي أيا حرية الاستقلال كالصومالي لغيسا هل نولاتو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Dado malis kadimi day nimbati tisle dudi sunsare adunyo dako. Dado malis kadimi day nimbati tisle dudi sunsare adunyo dako. Dawai dod boy indamade indorde man olukula rogide ando khewal israk makaderi doyo amali dandare sada. Dado malis kadimi day nimbati tisle dudi sunsare adunyo dako.